samasiya ciisaha lagaaga sheekeeyey qur-aanka ku qoran cabdiga addoonka ma aaminsanin annagu waxaan aaminsannahay ciise powerfula. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكيني عمر إذ الله دمانتيني سودوادا sida maqasheen ninkan waa nin Kirishtaan weyn muslim ahaan jiray uu gaaloobay wuxuu noqday Kirishtaan buu noqday. dadkan inta badan waxay ka doodaan ee diidaan Ciise Masiix calayhi salaam in uu yahay adoon Ilaahay. waxay u diidaan adoonnimadii ayay u diidaan. annaga dhammaanteen waxaan nahay cabiidu lillaah. marka maadaam nimankan waxay qaateen Kirishtaan bay qaateen, waxa ugu soo saareena buugga ay ka rumaysan yihiin Bible-ka ay leeyihiin Ilaahay xaggiis buu ka imaaday ayaa ugu cadeynaynaa in almasiix calayhi salaam inuu yahay adoon Ilaahay. bal kaaliya ila arka buugga waxa ku qoran yahay. fayraska koowaad wuxuu ku jiraa Ashciyaa cutubka 42 qormada koowaad. qormada waxay leedahay bal eega adoonkayga Antirio oo aan doortay oo ay nafsadeydu ku faraxsan tahay, ruuxayga ayaa dul saaray. wuxuu qormaha u soo saari doonaa xukunka. Kirishtanka waxay leeyihiin qormadan waxay ka hadlaysaa almasiix calayhi salaam. annaga muslimiinta ah waxaan rumaysannahay qormadan in ay tahay axad bashaa'ir annabiy sala allahu calayhi wasalam. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa qormadaani ay ka hadlaysaa. waa bishaaro weeyaan, lagu bishaaraynaayo nebiga weeyaan. laakiin dadkan waxay dhaheen ciise calayhi salaam ayay u tiiriyeen. de meesha waxaa ka laazimayo hadday u tiiriyeen ciise almasiix calayhi salaam idan waa addoon ilaahi weeyaan. meesha waxaa ku qoran addoonkayga ayaa ku qoran. ruuxa hadlaayana meeshan wax weye waa ilaah weyn sida meesha ka muuqata u jeediin siyaaqa. haddana saaxib waxaa ku darsataa verskan ku darso. fariimaha rasuullada cutubka 3 ilaah ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo ahaa ilaah owayaasheen wuxuu ammaanay midiidinkiisii ciise kii aad gacan geliseen oo aad bilaatos hortiisa ku diideen markuu goostay inuu sii daayo. sida u jeediin soomaalida tarjumadooda waxay ku soo qorteen meesha madiidin eragaas bay isticmaaleen. laakiin tarjumooyin kale markaad aadid sida alyasuuciya iyo alkatholikiya af carabiga waxaa ku qoran cabdahuna waxa weeyaan addoonkiisa weeyaan. ingilishkana markaa aadid sida new international version waxaa ku qoran his servant. new living translationna sidaas oo kale his servant addoonkiisii. sida oo kale markaa loo laabto ee asligii ee afka Greega lagu qoray sida iyaga ay sheegayaan waxaa arkaynaa ereyga meesha ku qoran wax weeyaan waa addoon weeyaan, addoonkiisii. makhtuudadan aa u jeediin waxaa la yidhahdaa almakhtuuta alfatikaniya weeyaan. qarnigii 4aad bay ahayd. makhtuutadan waxay ka mid tahay makhtuutaadka ama nuquulaadka ee qadiimiga laga soo naqliyey weeyaan. marka asal ahaan wax weeyaan ereygii wuxuu ahaa addoon buu ahaa. gadaal dambe ayay bedeleen, way taxriifiyeen, way ku ciyaareen. taasna wax oo lagu yaqiinay weeyaan ee Bible-ka. haddana mar kale waxaa ku darsataa verskan ku darso. fariimaha rasuullada cutubka 4 waayo waxaa runa in magaaladan gudaheeda Herodos iyo Pontiyos Pilatos oo ay la jiraan dadka yuhuudda ahayd iyo dadka reer binu Israa'iil iyagoo ka geesa ciise midiidinkaaga quduuska oo aad subagtay ay isu urursadeen. qormadaanna waa tii hore oo kale weeyaan. sida u jeediin ereyga iyaga ee adeegsadeen waa madiidin weeyaan, laakiin sida saxsan wax weeye waa addoon weeyaan. marka tarjamada alyasuuciya walkatholikiya sida u jeediin cabdika ayaa ku qoran, addoonkaagi ayaa ku qoran. ingilishkana waa sidaas oo kale servant ba ku qoran. asalkana markaa u laabatid sidii tii hore oo kale weeyaan ama qormadii hore oo kale weeyaan waxaad arkaysaa waxaa ku qoran addoonkayga ayaa ku qoran. waa kaa sidaa u jeediin makhtuutadana waxa weeye waa almakhtuuta assekandariya weeyaan. alfatikaniyana sidaas oo kale weeyaan sida u jeediin. qormadaas kaliya maaha, qormooyinkan dhan aa u jeediin wax weeyaan waxaa ku soo arooray waa ereygaas weeyaan. qofka laga hadlaayana waa ciise almasiix calayhi salaam weeyaan, waa addoon. marka qormooyinkan iyo qormooyin kalena way jiraane intaas dhan waxay caddeynayaan عيسى المسيح عليه السلام إنه أها الدهن. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذا وحلينا هاي ماشي وحكعب إن المسيح عليه السلام إنه أدون إلهي هاي
arrintaasna waxaa ka soo saarnay buugga idinka aad rumaysan tihiin. waxaa kaaga caddeynay buugga adi aad rumaysan tahay baibalka ayaa kaaga soo saarnay. marka arrintaasi way caddahay. qodobka labaad waxa weeyaan waxaa dhahday ciise idinka aad rumaysan tihiin waa mid oo powerful weyn aad dhahday, mid awood leh ayaa ku tilmaantay. miyaad ilowday yaa sida adi aad ictiqaadsan tahay? waxaad leedahay yaa ciise almasiix waa la salbiyey. waxaa ictiqaadsan tahay in lagu jeesjeesay. waxaa ictiqaadsan tahay in lagu tufay. waxaa ictiqaadsan tahay istilaab in la saaray. waxaad ictiqaadsan tahay in la karbaashay. marka baawurka aad sheegaysid waa maxay? ma kan baa oo sidaa loo galay? ma kana? subxaan allah. nimankan waxay diideen ilaahay qowlkiisay diideen. waxay diideen qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya ayay diideen. waxay diideen kitaab oo ilaahay xaggiisa ka imaaday oo sharfay nebigii ilaahay ciise calayhi salaam, oo karaameeyey, oo ka dhigay mubaarakan, oo ka dhigay. waxay ka doorbideen buug oo ihaaneenayo, buug oo ku tilmaamaya inuu yahay walciyaadu billah malcuun, mid lacnad qabo ama lacnad ku dhacday. marka maa lakum kayfa taxkumuun? war caqligiin siduu u shaqaynaya? bal ii sheega idinka. jaceylkii waxaa sheeganaysiin almasiix calayhi salaam, isla waqtigiina waxaad arkeenaa wax jaceylkii ka hor imaanayo ayaa u jeednaa. haddaad jeceshahay almasiix calayhi salaam waxa weeyaan waxaa rumaynaysaa yaa buugii ilaahay xaggiisa ka imaaday oo ammaanay. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا